الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. magacaygu waa Maxamed Saalax Maare waxaan ku suganahay magaalada Boorame mid ka mid ah hal-abuurada da'da yar ee Soomaaliyeed waxaan ku soo gudbinayaa maasaad kooban oo ka mid ah maansooyinkayga. maasada magaceeda waxa la yiraahdaa qayladaan. maasada waxay si dheer uga hadlaysaa ama uga faalloonaysaa waxa weeyaan iibinta ama gadashada ama dhulboobka Soomaaliyeed ee ku wado dowladda Kenya. inkastoo ay leeyahay wax ka dambeeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, haddana faragelinta ugu muhiimsan oo keenay waxa weeyaan dowladda Kenya. maasan dadka Soomaaliyeed baan leeyahay dhulkiina ilaashada, marna badda lafteedii baan iyada la hadlayaa. maasada waxay ku bilaabmaysaa sida tan: markuu qarankii burburay qiimihii Soomaali dumay, markuu ay qaraxyadu dhaceen, markii qorshaheenu lumay, markuu ubadkeenu qaxay, markii la iswada qalqalay, kuwii kuu jiray qurbaha markay adiga kaa qanceen, daraad quruxdaan lahayn hadduu qabqabluhu bahdiray, shalay quwaddaan lahayn haddaanu ka qaawanahay, bad yahay aan qayline maxaan kuu qaban karaa? siyaasiga qarashka jecel hadduu macdantaadu qubay, inaan diro qayladaan maxay kuu qaban kartaa? dhiiggaan kuu qubi karaa, naftaan kuu qali karaa, qalbigan kuu huri karaa, qarashka adigaa ka weyn adaan ugu qaaliyo qaranka macdantiisa wada. kumaan gubin kuma qawadin haddii aan ku quudin jiray, bad yahay maan quusan weli, bad yahay kuma qaybsadaan nin qaad kugu doonayiyo Kenya qoontaada jecel. igaad qurux u tahay, dalkaygaad qalin u tahay, cadowgaad qodhi u tahay. Soomaalay qayladhaan fariin quman baan wadaa, dhulboob qaran baa jiree cadowga ma qowracnaa, qabyaalad xun baa jirtee midnimo ma qareensannaa, siyaasad qalloocantaa qalbiga naga dhaawacdee dadkeennii shalay ka qaxay sinaan ma ku qaabilnaa. intii qarannimo rabtaay jawaabaha soo qorshee.